inaan joogno deegaankan oo maalmo ka hor uu cadowga ka talinay wax ilaahay loogu mahdiyo oo ilaahay loogu xamdiyo waay in maanta aan halkaan ku sugannahay iyada oo ay cishanayaan ama ay ilaashanayaan dadka deegaanka waxaan u mahadinaynaa marka labaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa halgankaas dheer oo deegaankan laga xuriyay waxa kale oo u mahadinaynaa maamulka Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan maamulka gobolka Hiiraan oo iyaguna ka shaqeeyay sidii dadkan deegaanka ay isku xureen lahaayeen geliyayna dhiirigelinta halkaan leeg sida saraakiisha iga horeysay iyo madaxda iga horeysay ay sheegeen deegaankan waxaan rabnaa annaga inuu noqdo meeshii Soomaali ay dhihi lahayd cadowga laga xureeyay maaragta Soomaaliya wuxuu ka soo bilowday deegaankaas in lagu dhiirado liskana dhiciyo waxa ilaahay mahadiisa inaan maanta aan idin la joogno oo aan maaragta wajiyadeenu ay isbaranayaan meelo ka duwan oo iyo xaalado kale oo ka qurux badan aan maaragta aan isku arki doono mujaahidiin baa tihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa wuxuu ka xarimay dadka waxa ugu horeeyay dhiigga muslimka ah waa marka labaad qofka muslimka waxyaabaha laga xarimay waxa kamid ah maalka qofka kale oo muslimka walaalkiisa haddii dhiiggii la xarimay oo maalkii la xarimay waxa ku sii xigo sharafkiisa cirdigiisa nimanka lala dirirayo saddexda shay iyo in ka badanba way ku xadgudbeen dhiigga qofka muslimka ay ku xadgudbayaan waxaad arkaysaan mar walba oo la xanuunjiyo oo sida maaragtay idinka deegaankan ka soo sameeyeen oo kale maras iyo masaakiin bay qarxi ku ridaan xoolo dadka muslimiinta ay leeyihiin oo idinka ay leedihiin walaalkaagi walaashaada ay leeyihiin iyo hooyada iyo aabaha iyo gabadha yar oo maaragtay muslimada deegaankan degan ay leedahay ayay subax walbo magacyo kala duwan intay soo baxsadaan ama ganaaxa ugu yeertaano ama zakaha ugu yeertaano magacyo kala duwan oo diinta islaamka uga been sheegaan intay ugu yeertaan ama baadha ugu yeeraane ayay ka qaataan maalkiina meeshaasay ka joogaan cirdigii iyo qofka sharafkiisii qof shabaab ku hoos nool oo xor ah ma jiro ilmihiisa xor uma ahan waa laga kaxaysanayaa xoolihiisa xor uma ahan gurigiisa xor uma ahan gabadhiisa xor uma ahan ciduu rabo ma siisan karo shabaabka ka guursanayo ka wadanayo ka xoogayo waxaas qof muslina ma dul qaadan karaa iyada oo qof muslina oo damiir leh madaxiisa koreeyo wax la aqbali kara ma yihiin sida daraadeed in lagu jihaado ayay culimadu fatwootay jihaad rasmi ah ayaad ku jirtiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana ajir buu idinka siinayaa dadkiina iyo deegaankiina khidmad wanaagsan baad u qabateen waxaan idinka rabnaa marka annaga waajibaadana nasaaran waajibaadka koow nasaaran waxay tahay in wax allaala wixii dawladnimada lagu heli karo oo lagu aboodo oo ay ugu horeyso mustaqbalka inaad ciidamada maaragta qaranka Soomaaliyeed ay ka mid noqotaan inaan idin la nimaadno sidoo taliyaha idin sheegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed idin kama hakran doono rasaas uu haayo raashin uu haayo wax allaala wixii gaadiid gacantiisa ku jiro idin kama hakran doono idinku garab istaagi doona adinkina waajibaa idin saaran waajibka koow idin saaran wuxuu yahay deegaankan iyo deegaanada la midka inaysan shabaab ku soo noqon waajibka koowaad waa shabaab haday deegaankan dib ugu soo noqdaan macnaheedu wax allaal wiilkii naga shahiiday iyo gabadhii naga shahiiday bilaashay u dhimatay waa inaysan ku soo laaban deegaanada kalena waa in laga xureeyo oo ay ka socdaan nimankaas waxa idin banaan dhiigooda waxa idin banaan qorigooda inaad ka qaaditiin waxa idin banaan xoolahooda inaad ka qaaditiin culimadu siday fatwoodeen arrinkaas marka waxaan idin ka rabnaa inuunan nagu soo laabanin labo waajibaadka labaad oo nasaaran waxa waaye ciidamada hore u ruqaansan doonaan waxa lana ka rabaa inaan maaragta ay aad la ruqaansataan oo deegaanada harayna laga dabagalo waxa idinku mahadinaynaa wanaaga iyo sharafka aad ciidamadu ula howlgasheen shabaabka iska dulqaadeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynayaa in deegaanada Soomaaliyeed laga dulqaado waxaan kaloon rabnaa
inaad maanka ku haysaan shaqada aa haysaan shaqo ilaahay dartiisana loo qabanayo qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo gabadhaha muslimiinta iyo ilmaha iyo waayeelkii maras lagu badbaadinaa inay tahay qofkii ku dhintay shahiidiya waxa kale oo idin kala dardaarmaya inaydin salaadiina ilaabin waxaan kale oo idin kala dardaarmaya inaanan qabiil deegaankan joogo la diraa inaysan dhicin haddeer waxaan haayo waa ka weyn waxa ma aragtaa oo aan anaga dhaxdeena naga dhaxeeyo nin baa hadda ka hor waxa laga sheegay nin adeerkiisu la dirirsanaa asagoo la dirirsan ba Soomaalida dhaqankeeda waa taqaaniine ayaa gabar laga soo doontay gabadha adeerkeeda laga doontaa dhaqanka Soomaaliyeed markaasuu subaxay dagaal u balansanaayeen markaasay wixii familkii wuxuu ku qasban yahay inuu face saving wax la yiraahdo sameeyo wajigu badbaadiyo oo reerkii intuu u tagay uu yiri waagi baasmaan ugu bariyay maya wuxuu yiri nin aan waxaan isku nahay yaqaano waxa naga dhaxay aan aqoonaan tir mararka qaar ko Soomaalidu waxay tiraahdaa dhinacaas anaga waxaan ka imid dhinacaas koonfur galbeed wal koraa toob kooyaan wala saad wallaabe macnaha haddii problem kore uu yimaado wixii hoos reerkii iyo ka dhaxeeyeen dhinaca la isaga dhigaa annaga marka waxa u baahannahay inaan maaragta aan wixii dhaxdeena qabaa'ilada iyo dhaxdeena iyo reeraha ka dhaxay inaan dhinac dhigno shabaab iska bixino taasa waajibka koowaad oo nasaaran deegaankan nimanka qoryaha meelaha ay kula jirjiraan iyagoo cararaay qof walba wuxuu ka soo dhacsada xalaalay u yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qori shabaab laga soo qaaday idinkaga daba imaan maayo waxa idinka rabaa inaad wixii ka soo aruursataan xoolo shabaab leeyahay oo ka soo furateen idinkaga daba imaan maayo ha laga wada furto nimanka waa jabeen deegaanada laga sii bixiyo waxa idinka codsanaa inaan deegaankan idinku soo gaarin oo weerartano weerarka asal ah sidoo ma aragtaa xildhibaanka sheegay weerarkan isku difaacayna aada u mahadsantihiin salaamullaahi calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh